wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbul xaakimka kulmiye oo soo gaadhay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa kulan ballaaran la qaatay taageerayaasha xisbiga kulmiye. kulankaasi ayaa ujeedkiisu ahaa dardargelinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sool. kulankaasi waxaa soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Sool, waxaana furitaankii munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye. waxaynu halkan ku soo dhaweynaynaa wafdiga heer qaran ee xisbiga kulmiye uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye, gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga, xogeyaha guud ee xisbiga gudoomiye Cabdicasiis Samaale, iyo wafdiga dhammaan madaxda kala duwan ee xisbiga ee heer qaran oo dhammaantood halkan maraya. odayaashii lafdhabartii xisbiga kulmiye ee gobolka, haweenkii xisbiga kulmiye ee gobolka, dhalinyaradii dhammaantood way halkan bay fadhiyaan. waxaan leeyahay soo dhowaada. waxaan aad iyo aad u raalli gelinayaa oo aanan xusin guddoomiyeyaashii heer qaran ee kulmiye iyo now intaba. waxaan leeyahay raalli ahaada, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaan uga jeednaana ma jirtay, waxa weeyaanu halmaan hadal kuma jiro. anigu hadal badani halkani ima yaallo. muhiimaddu waxay tahay inaynu idinku soo dhoweyno gobolka Sool iyo caasimaddii Laascaanood oo dhammaantood idin diyaara. weliba waa nagu kediseene waxay qurux badan lahayd inaad ka hor noo soo sheegtaan. haddana waxaan filayaa dee gobollada soo marayseen in laftaydu inaan dabyarshidayne, bal waxaad eegi doontaan uun taageeradayada iyo awoodda uu xisbiga kulmiye. kaloo mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay. waxaan kaloo mahadcelinayaa madaxda gobolka ee ugu horeeyo barasaabku, maayarku, xogeyayaasha oo qayb weyn iyaguna ka qaatay bulshada kala duwan aynu maanta u taagannahay. waxaan anigu waa cusbahay, hadal badan oo kale odhan maayo. waxaanu idinka codsanayaa in layla shaqeeyo, anaan idinla shaqeeyo. waxaan jeclahay xisbigu waa xisbu qarankii, waa xisbu xukunkii, waa xisbiga jira ee dalka wixii uu ka qabtay. waxgaradka cuqaasha dhalinyarada, haweenka iyo weliba aqoon-yahanka ee xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka Sool ayaa dhammaantoodba halka iyaguna ka hadlay. munaasabadan oo ahay mid aad loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen wafdiga heer qaran ee xisbiga kulmiye. waxaan leeyahay mudanayaal soo dhowaada, ku soo dhowaada gobolkiinni. mudanayaal ku soo dhowaada shacabkiinni aad xilka wahayseen ee xisbul xaakimka u haydeen. aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa. waxaanu kaloo halka uga mahadcelinaynaa maamulka heer gobol, cabdikariin aadan xaaji diiriye, iyo heer degmo. aad iyo aad baanu u mahadcelinaynaa. shacabkaanu u mahadcelinaynaa. ilaahay baa mahad leh. waxaa la yidhi ninbaa madaxweynahaanu ku ammaannay, aad iyo aad baanu ugu ammaannay. waxaasoo dhan waxaanu uga jeednay waxtar ma ahayn shacabku ku qabo ama aanu annagu ku qabno odayaashii taageerayaasha haddaanu hayne. waxaanu uga jeednay war ceeb baan inoo dhaxayne, aan weligii isaga ammaano. saasay naga ahayd. haddeerna waxaan leenahay soo dhowaada heer gobol, heer degmo, xisbiga, mudanayaasha. Soomaaliya waa la wada leeyahay. Soomaaliya waa la xafladda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha leh iyo waqtigan socdaalka dheer noo soo gashay maxay tahay heer qaran oo dhan dhammaan xisbiga kulanaan kala qaadqaaday. waxaan habeen barajir waan aragayga. waxaan aad u salaamayaa raggu dee raggay garanayaane gudoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran Sahra Marwe Sahra iyo xogayaha heer qaran ee xisbiga kulmiye yana madasha ku sugan gabadha dhalinyara. waxaan kaloo salaamayaa nisan oo xigaal oo ahaan jirtay gudoomiyihii hore
ururkannow haddana guddiga fulinta golaa dhexe taa marka laga yimaado waan sii soo koobayaa waxaa weeye alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle ilaaragayna bustihayayaasha kulmiyaynu nahay soomaalida waxay ku maamaadaa war indhaidhaama marka meelaha la fadhiixda kulmiya miyuu seexday kulmiya waxa weeye waa rugcadaa rugcadaaguna marka xaaladdu xun tahay ayuu soo baraarugaa kaambey lama gaadhin waxa weeye madaxdiina idin sida wixii la ila hadlayo soo dhawaada kulmiyaal muxuu xalqayaha guud muxuu ahay qaranka kulmiye dhammaantii soo dhawaada hadal badan haan bulsho hadalkii horaa loo yidhi anigu badin maayo gudoomiyaha heer qaran muxuu ahaye qaranka dhammaantiin odayaasha odayaasha muxuu ahaye xukuumadda oo dhan أول واحد هاجري وطني هو واحد وأوسع وايد السيتشيد يهري يا لقد ما هو وحصاك كوفية عنود صاحي إذا كان قرر إنه يقول يستوي وبالكل يومونات هذا سوته أنا هو ساسان كوفية ساك عنود صاحي عبد الكريم سوالو كسر ورا كسر وهذا ركتاه العلم مو يال سود وهذا عيار نقول لنا هاي وقلت إنه حزب كلمية وحزب جاموري لما تنكي سنة ودم بيجي وحكش قيل هرمركا ديجان كنا يك قود أهان سوماليلان وخصوص علي مربضان أو مسؤولين بدن أو ذلك واحد وقبتي sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay mas-uuliyiintii wafdigaasi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere gobolada barigaanu ugu horeysiino waxaanu ka soo bilownay berbera oo barigaanu ku daray berberana burco aynaba shalay baanu soo maray maanta laascaanood baanu joognaa waxaanu tegi doonaa ceerigaabo intaba waanu maraynaa waxaanu u maraynaa dardaragelinta xusbiga kulmiye iyo dadkii xusbiga inaanu saragno ayaanu u guurgalaynaa bari iyo galbeedba socodka iyagu intaasuu ahaa idinkuna soo dhoweyntii aana soo dhoweyseen iyo adkaysiga halkan aa u dulqaadateen aa fadhidaan iyo xusbiga kulmiye sidaa u taageersantihiin intaba waanu idinku hambalyaynaynaa ilaahay baa mahadle mahadda ilaahay waa fara badan tahay mid ka sii badanna waynu doonaynaa waxaa marka ugu horeysa mahada inteenna halkaa fadhida oo nabadgelyo ku wada fadhina nabadgelyadii aynu ka shaqaynay ee haddii allaba qadarkeeda leeyahay wixii dhacay oo dhan aynu gebigeedaba meel iska dhignay taasu ammaan gaara iyo ilaahay oo ina solosiiyo mahad ku leh ayay leedahay halkii baynuna ka sii wadaynaa dowladduna waynugu garab gashay ama xisbiga kulmiye waxa ay ka qabanayeen bay ka qabteen iyagana waynu u mahadnaqaynaa innaguna waynu isu mahadnaqaynaa waa farxad iyo rayrayn dad baa kale dhammaan waayey waxaa wax ka yari dhex ururada siyaasiga aadka u badan ee la furay cidda ku dhiiratay ee furtay waa xisbiga kulmiye markaa baqdin kama qabne waanu soo dhawaynaynaa gobolka soole waxaan leenahay soo dhaweeya waayo 10kii sanaba mar bay ururadu furmaan si 3dii xisbi ee hore u jiray inta loola tartamo hadday gaabiyeen boodhka loogu ogay meeshaba baneeyaan oo kuwa cusub soo baxaan kulmiye iyo waddan iyo wixii 3 xisbi qaran bay ahaayeen muddo 10 sano iminka 10kii ugu dambeeyay kulmiye isagu 20 buu maraya u cidna sidoo kale waddanina 10kii buu buuxiyey 3daa xisbi kawaankay saaran yihiin maanta kawaanku waa maxay marka neefka la qalayo Soomaa ayaa kawaanka la geeya kawaankay saaran yihiin wax la tartamaya ururo aad iyo aad u fadal cadcad gobolkan waxa ka soo jeeda Cataash waxa ka soo jeeda Xaglatoos waxa ka soo jeeda dad badan oo kale waa rag aanu soo dhaweynay la rabo saaxada inay iyagoo xisbiyaa soo galaan waxa kamid ah ururo badan oo kale siyaasi ah oo kamid yahay barwaaqo oo kamid yahay ka dalka haysa xilliga noloshu isbedesho amaanteedana xukuumaddaas iska leh marka horta xukuumadda kulmiye iyo laascaanood gobolka Sool isku bili bay noqdeen waxay noqotay inuu madaxweynaheeni ka qadeeyo magaalada Tukarraq
shishadeeda oo ciidanka xeradiisa uu ka qadeeyo si amniya soo dhoweynta iyo quruxda dadka deegaanada deganna aad tacajabaysa maalintii madaxweynuhu yimi halkan kulmiye wuxuu furay xisbiyadii waa soo koobayaay xisbiyadaa la furay waxaa ka mid a qaar ka soo jeeda gobolka sool waxay leeyihiin kulmiye siyaasaddiisay ka mid tahay inaan saddexda xisbi qarane dalka ku tartamaya aanay saddexda ninba noqonin saddex nin oo gobollada kale markay tagaan ilmaadeer in la helo xisbiye ay leeyihiin gobollada kaleo dad isku hayba aanay ahayn